maamulka iyo macallimiinta madrasada Cismaan bin Affaan culimaadudiin mas'uuliyiin ka socotay xarumaha waxbarashada waalidiin iyo arday ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu sagooteeyay arday ka baxday dugsiga hoose ee madrasada Cismaan bin Affaan waxaana ugu horeyntii khudbado ku baxayay afaf kala duwan madasha ka jeediyay qaar ka mid ah ardaydii qalin jabisay سلام الله يهدي إليكم مع الإشفاق من زوجا حنينا أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم مدرستنا أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم مدرستنا الفجر أشرق باصما أيها الضيوف الكرام ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا هي سبب العظيم في تحصيل سعادة الدنيا والآخرة قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذه وصية نعم الوصية فهي وصية الله تبارك وتعالى للأمم قبلنا ووصيته لنا من بعدهم waalidiintii iyo culimaadudiinkii madasha lagu casumeeyay ayaa ka hadlay muhiimadda waxbarashada islaamiga iyo sida qof walba oo islaam looga doonayo inuu ubadkiisa baro culuumta shariicada islaamka. runtii waxaan filayaa inay mar walba u muuqato xafladda qiimaha ay leedahay iyo khayrka badan ee ka muuqda mar walba uu ku faraxsan yahay. anigu waalidiinta ayaan ka mid ahay, ilmahana way ii dhigtaan. madrasadana waa laga soo sheekeeyay taariikhdeedii waqtigii la aasaasay markii Soomaaliya uu burburka ka soo dhacay ee Ilaahay ina keenay inuu meeshan inoo qadaro oo soo degnay ayaa madrasadan la aasaasay. dad islaama oo meel kale inooga mid baan madrasadan aasaasay iyo madaaris kale oo fara badan. hadda laakiin tan aan joogno 1992 sagaashan iyo labadii yaan filayaa in la aasaasay. marka koowaad ilaahay cabsidiisa isku dardaarmayna marka labaad waalidiinta ayaa mid leeyahay. waalidow ilmaha waxa dhashay oo guryaha jooga waxa ugu sharaf badan ilaahay inuu ku siiyo waa beerkaani waa wanaagii. sidaa darteed ilaahay uu kaala xisaabtamaya tarbiyadooda. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaalama xisaabtamayo oo laguma weydiinayo cunugan maxaad ugu labisi weyday ama raashin fiican u sii weyday. taa karaankay ku xiran tahay iyo qofka sida awoodiisa tahay. laakiin ilmahaga maalinka 7 jir gaara inaad qur-aanka barto, qur-aankii markuu barto oo qur-aanka uu dhammeeyo inaad diintii barto oo tawxiidkii tafsiirkii iyo xadiiskii meeshii laga akhrinayay iyo caqiidadii saxda ahayd waa la weydiin aakhiro. maamulaha madrasada Cismaan bin Affaan ee xerada xagar dheer ciise xasan colow ayaa ka warbixiyay madrasada Cismaan iyo ardaydan ka qalin jabisay. madrasada waa horna galaaska lixaad ilaa galaaska فاسكن الناسية مروضة يكون أنت المدرسة جلست هذا تخرجها وفصل كل حد ودفعات الكلات ما أنت كتخرجها في المدرسة وهو حي المدرسة شباب بيكونها كده وفصل كالشباب مثلا إنها لما يستعمل محمد الجلال لحادك أبو بكر لكاف سيدنا لكن الحين أنت قبل لا يطه سنة كان محل لحادك هل كان يكون أخرستان halkan ayaa lagu siiyay shahaadada lixaadka marxaladii ibtidaa'iga ayagoo shahaadadoodii wato waxay aadayaan Abu Bakar Sidiiq. halkaas ay marka marxaladii cadaadiga iyo tanawiga ay ku dhamaysanayaan insha Allah. marka madrasadu marka waa ibtidaa' dhamaystiran. hore waxay ahayd ibtidaa'i wax baa ka dhigaa fasalka lixaad baa ka go'an oo ka dhigaa, laakiin maanta way dhamaystiran tahay. marxalada ibtidaa'i dhamaystiran waaye. هو لا يتخرج جري لكن لحد كمان قناة هذا بها يسأل الله. أحمد عبد الله جامع أحمد ديري جبلان TV داداب.